waxaa maanta si rasmi ah looga bilaabay degmada Qoryaale wajiga labaad ee wadada u dhaxaysa Qoryaale iyo laamiga dheer waxaana xaflad ballaaran oo lagu daafurayay bilowga wadadaasi ka soo qayb galay barasabka gobolka Togdheer mudane Maxamed Muuse Deeri agaasimaha gobolada bariga wasaaradda duulista iyo hawada mudane Cabdirasaaq Siciid Axmed xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Beddi maamulka degmada Qoryaale oday dhaqameedyo iyo dadweynaha Qoryaale dhammaanba mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay bilowga wadadani ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay wadadani u leedahay dadweynaha ku nool deegaamadani iyadoo wadadu ay socon doonto ilaa degmada Beledhig waxaana dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladda lagu bilaabayay wadadaasi ay baaq dheer u direen dawladda Soomaaliland iyo dadweynaha ka soo jeeda deegaamadani ay wadadu marayso gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaanba inay isu taagaan dhaqaalana ugu deeqaan hirgelinta iyo dhamaystirka wadadani iyadoona isla halkaasi uu xildhibaan Beddi ugu deeqay wadadan 100 sibir oo uu kaga qayb qaadan doono hirgelinta wadadani waxaana dhammaan mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadaladoodii kamid ahaa aan kala u mahadnaqayaa shirkadda Hiirad oo runtii wixii aanu ula nimi wax nagala qabatay imikana aragtaan oo gacanta ku haysa iyadoo aan waxba u dhiibin iyadoo iskeed wadadii gacanta ku haysa magaalooyin aad u muhiim ah ayay wadadan u martaa ama Qoryaale ha noqoto ama Warcibraan ha noqoto ama Shashacad ha noqoto ama Taalabuur ha noqoto ama Beledhig ha noqoto waana wada aad u istiraatiijiya laamigan way ka baagaadid badan tahay bal weyn oo dhan baabuurteedu oo baabuurta aad u leh wadadan ay martaa waa wada meel bartama ah marta oo baahideeda in la sameeyo aad iyo aad ay u fiican tahay marka ma aha ujeedada iyadu inaanu Qoryaale intaanu gaarsiino kaga hadhnee ilaa Beledhig way cid kasta waxaan halkan ka codsanayaa anigoo ah gudoomiyada degmada Qoryaale guda iyo dibadba cid kasta oo danaynaysa jiidan ama Soomaaliland baahi in ay wadadan wax ku soo darsato oo loo dhameeyo sida ugu fudud loo dhameeyo ragga horta waa la saddex qol la magacaaba xildhibaan waa la magacaaba dawladna waa la magacaaba qurba joogna waa la magacaabay reer Qoryaale gaaro afarta waxa laga yaqaanuna afarta mitir inuu dhameeyna ma wax kale laga yaqaan ilaa hawdna waa loo socdaa waxa loo socdaa Warcibraan waxa loo socdaa Shashacade waxa aanu filaynaa inay gaadho Beledhig wala dadkana doortay amana doortay anigu waxaan halka kaga dhawaaqayaa 100 sibir inaan bixiyo horto 100 sibir kaga dhawaaqayaa halkan insha Allah 100 sibir aan bixin doonaa saaxiibadeeda kale insha Allah xildhibaanada ee degmadan laga doortay ina waxaan rajaynayaa insha Allah iyaguna qaarna hore u bixiyeen inta kale insha Allah waxaan rajaynayaa inay bixin doonaan gola degaan ahaana insha Allah waxaan ballan qaadayaa inaan maayirka iyo konsolkaba gaarsiiyo inaan qayb weyn ka qaadano weeyaan dhulka laga qaaday waxaana runtii juhdigii ugu badnaa galiyay markii fakarka uu keenay gudoomiyaha degmadu shirkadda Hiirad iyo injineeradeeda ugu horeeyo injineer Faarax Xuseen oo runtii hawl badan ku dhacday oo qayb kala duwan ay wadadu soo martay marka waxaan runtii ku soo dhawaanayaa runtii farxad bay tahay hawshii oo maanta intii ugu muga weyneed ay soconayso oo halkii maaragtay dhudhubtii la sameeynaya hadii ay ku roo yahay halku dhig Soomaaliya wuxuu yiraahdaa wixii ragu kaco rabbina aqbalo way rumoobaan hadii aqliga iyo muxuu ahaa maskaxda iyo muruqa la isu geeyo waxay la tahay in wax badan qabsan doono waan huba dawladdu inay ka qayb qaadanayso oo doorka hoggaanka matalay insha Allah horena riboorka uu gudbiyay Qoryaale